rabshadihii sharci darrada ahaa ee dhawaanahan ka dhacay duldigaanka axmarada ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid ay soo abaabuleen shacbiyaha iyo weliba Gimbood Sabat oo aaminsan siyaasadda loo yaqaan Timkitanya taasoo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu ku tilmaamay inay tahay siyaasad hore loogu soo xasuuqay qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya isla markaana lagu doodsiiyay kala duwanaanshahooda diimeed luqadeed iyo dhaqaneed isla markaana si jujuuba oo qasab muddo qarniyo ah loogu cadaadinayay inay sheegtaan hal luqad hal diin taasoo ah mid ay aaminsan yihiin kooxaha Timkitanyagu madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar maruu ka hadlayay ujeedada ay ka leeyihiin rabshadahan sharci darrada ah ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan inay ku dhibaateeyaan nidaamka federalismka ah ee qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya ay ku dhisteen midnimo ku salaysan rabitaan gaar ahaan sidii ka muuqatay halkudhigyadii kala duwanaa ee kooxaha rabshadaha wada iyo weliba erayadii axmaqnimada ah ee ku hadaaqayeen kuna doonayeen inay ku soo celiyaan nidaamkii dargiga ee gobolkiisu dhacay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar maruu ka hadlayay dibadbaxayaasha soo abaabuleen Gimbood Sabat iyo shacbiya calankii dargiga ay kula soo baxeen magaalada Baxardhaar ayaa waxa uu ku tilmaamay mid meel ka dhac ku ah sharafta iyo haybadda qoomiyadaha 80 kor u dhaafaya in calankii shal lagu gumaadayo kooxaha timkiidka aaminsan ay rabaan inay dib ugu soo celiyaan klitaliskii dargiga oo ay gobolkiisa ay rideen qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya መፈክሮቻቸው እንደተረዳን ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከዚህ በፊት ነፃ ወጡበት አምባገነናዊ ስርዓት ድጋሚ ለማምጣት ብሎም ይደርግ ባንዲራ በአደባባይ ያመጡበት ስለሆነ ይህ ማለት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝብን መናቅ ስለሆነ ስርዓታቸውን ማፈረስ ስለሆነ የደርግ ባንዲራ ይዞ ሲመጡ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ የተጨፈጨፈበት ባንዲራ ተመልሶ ይዞ ሲያመጡ ማፈር ነው ያለባቸው madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa carabka ku dhuftay inuu ujeedada ay ka leeyihiin kala qaybinta qoomiyadaha ay gabaadka uga soo dhiganayaan xadka deegaanada Axmarada iyo Tigreega oo ah laba shacab oo qarni ka qarni si nabadgelyo walaalo ugu soo wada noolaa waxna uga sheegayaan qaar kamid ah qoomiyadaha dalka inay tahay mid ay ku rabaan inay ku burburiyaan nidaamka dimuqraadiyadda cadaaladda iyo sinaanta qoomiyadaha ee dalkan Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya oo fariin u diray shacabka sharafta leh deegaanka Axmarada iyo ururka rugcadaaga ee biyaarin ee ka taliya deegaanka ayaa waxa uu sheegay inuu ka xun yahay kooxaha timkiidku rabshadihii ay geysteen dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay gaar ahaan kuwii ku dhintay iyo weliba hantidii ku burburtay sidoo kalena waxa uu cadeeyay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar in arrin kastoo ku timaada dowladdeegaanka Axmarada iyo ururka rugcadaaga ee biyaarin inay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin isla markaana ay la shaqeynayaan ይህ ጉዳይ የአማራ ክልል ጉዳይ ብቻ አይደለም ይህ ጉዳይ የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ ብቻ አይደለም ስለዚህ ስንፈኞች በዚህም አንድ በተለያየ ፌስ እና በተለያየ መልክ የቀያየሩ አንደ በቀይ አንደ በጥቁር የሚመጡበት ሁኔታ ስራታችን ለማፈራረስ ስለሆነ ይሄንን መቃወም አለብን የሚል አመለካከት ነው ያለው የሶማሊያ ክልል ህዝብና መንግስት አቋም ደግሞ ይሄንን ነው dhanka kale madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar maruu ka hadlayay rabshadihii sharci darrada ah ee ka dhacay deegaanka Oromiya ayaa waxa uu ku tilmaamay inay ku soo biyo shubanayaan waxa uu ku macneeyay waxa loo yaqaan tabaabinadka oo anaag iyo xaq jirayaasha ILFO way dabada ka wado shacbiga waxaana ku tilmaamay fikir madalays ah oo dhan dabagaala oo axmaqnimo iyo daciifnimo qarniyo lagu soo hadaaqaya isla markaana aan waxba u dhimaynin jiritaanka iyo isku duubnida Itoobiya madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo digniin cad u diray kooxaha timkiidka tabaabinadka ILFO Gimbood Sabat onaag iyo shacbiya ayaa waxa uu sheegay in qoomiyadda Soomaalida Itoobiya iyo waliba xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayna marnaba aqbalin isla markaana ay halgan cad la galayso cid kasta oo isku dayda inay soo celiso nidaamkii gobolkiisu dhacay ee dargiga iyo waliba fikradaha tabaabinadka isla markaana gaashaan iyo ilaalo gaar ah uga ahaanayaan cid kasta iyo wax kasta oo wax u dhimayay dastuurka iyo nidaamka federaaliga ee ku dhisan rabitaanka iyo midnimada qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka የፌደራል መንግስት ስርዓታችን ለመጠበቅ የሞት ሽረትና የህልውና ጉዳዮችን በመሆኑ የስንፈኞች ኃይሎችና የበሬ ወለድ የቀለም አብዮተኞች ስንፈኞች እና የሻዕቢያ ተላላኪዎች ይህንን ሊረዱ ይገባል የሚል አቋም ነው ያለነው madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa uu cadeeyay in qoomiyadaha Itoobiya ayna jirin wax isugu jira
iyadoo qoomiyad kasta ay xaqiiqa si gaar ah u maamulanayso tusaalena uu soo qaatay in deegaanka axmarada uu ka taliyo ururka biyaadin deegaanka Tigrayna uu ka taliyo ururka TPLF Oromariyana ay ka taliso OPDO deegaanka Soomaalida Itoobiya uu ka taliyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya dalkan ay ka jirto dawlad federaal ah oo loo wada dhan yahay ህገ መንግስታችን ከተረጋገጠ ወዲህ አንድም ብሔረሰብ የሌላኛው ብሔረሰብ ጥቅምና መብት የወሰደበት ሁኔታ የለም ለምሳሌ አማራ ክልል ያስተዳድር ያለው በባድን የሚመራ ክልላዊ መንግስት ነው ባድን ያስተዳድር ያለው ሌላ ሹመኛ የለም አማራ ነው ያስተዳድር ያለው ኦሮሚያ በሁዲድ የሚመራ ክልላዊ መንግስት ነው ኦሮሚያ ያስተዳድር ያለው ተሰም ትግራይ በቲቢኤልኤፍ የሚመራ ነው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ያስተዳድር ያለው ኢሶዲባ የሶማሌ ክልል ህዝብ ያስተዳድር ይገኛል ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን ህዝብ ያስተዳድረ ነው ስለዚህ አንድ ብሔረሰብ ከሌላኛው ብሔረሰብ ጋር የሚጋጭበት ሁኔታ የለም አንድ ብሔረሰብ ሌላኛው ብሔረሰብ ጥቅም ወሰርክ እንደዚህ ሆነሃል የሚባልበት አንድም ነገር የለም ሁሉም ብሔረሰብ የራሱ ዞን ካለ ክልል ካለ ወረዳ ካለ የራሱን ህዝብ ያስተዳድርበት እንገኛለን ይህ የብሔረሰብ ጥያቄ መብት በህግ መንግስት 1983 ወዲህ በ87